بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan oo wacan meel kasta adduunka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkan kooban aan uga hadli doono qaraxyadii iyo dilkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee loo geystay wadaadka lagu magacaabo Sheekh Cabdiwali Sheekh Cilmi Yare iyo kooxdiisa saaka oo isniin ah 26 November 2018 wararka naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in wadaadkaas iyo xirtiisa lagu halaagay ama lagu laayay qarax halka ka dhacay runtii Soomaali kuma cusbo qof la dilo ama qarax ka dhaco waxaase saaka cusboonaaday hambalyada iyo bogaadinta iyo soo dhaweynta qaraxaasi ay dadka qaarkood ku shaaciyeen baraha bulshada waa nasiib darro intaasoo sano kadib dagaal dheer qaraxyo dheer mataqaanaa ikhtiyaalo qof dadkii lagu dilo waxaasoo dhan kadib ina maanta la helo baraha bulshada dadka isticmaala shalay ka baroordiiqayay shalay ka dhiidhinayay qaraxyadii ka dhacayay dalka inay maanta soo dhaweeyaan walaalayaal naf walba way dhimanaysaa geeridana way dhadhaminaysaa waxaase lagu kala duwan yahay qaabka loo dhinto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walan yu'akhira allahu nafsan idaa jaa'a ajaluha ilaahay subxaanahu wa tacaala nafi dib u dhigi maayo marka ay timaado teedii sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kullu nafsin daa'iqatu lmowt dabcan carabtuna waxay tidhaahdaa almowtu waaxidun geeridu waa hal walasbaabu mutacadida sababaha loo dhinta ayaa kala duwan wadaadkaas iyo dadkii la dhintay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u qoray wadaadkaasi saad ogtihiin muran badan ayuu dhaliyey baraha bulshada dad badan ayagoon ka fiirsanin si toos ay si dadbanba waxay u fari jireen in ninkaas la dilo arrintii ay jeclaayeen ayaa dhacday ninkaasna waa la dilay walaalayaal qofku bini'aadanka ah dembi uu geli karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ka geli karaa dadka ayuu ka geli karaa qofka markuu dembi galana waxaa muhiim ah in sharciga lala tiigsado islamarkaana maxkamad la saaro islamarkaana wixii xaq u soo baxo oo lagu xukumo lagu fuliyo laakiinse qaraxu meernababa ma bannaana qaraxu waa xaaraan ama ha loo geysto gaalo ama ha loo geysto dad muslimiin ah ama ha loo geysto dad mataqaanaa aan waxba galabsaninba qaraxa noocuu rababa ha noqdo waa xaaraan waxyaalahan ay ugu yeeraan alcamaliya alistishhaadiya camaliyada istishhaadiyada oo magaca shahaadada la siiyo la qurxiyey runtii ma ahan waxaa la yidhaahdaa alcamaliya alintixaariya qofka ayaa isdilaya inuu qofka isdilana naftiisa ma bannaana kan lagu fuliyey iyo kan fuliyeba waa khalad maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima maanta walaalayaal marka waa nasiib darro qaraxa noocaas oo kalea inaan soo dhoweyno waxa ay sabab u noqonaysaa oo ay dhiirigelin u noqonaysaa dadka qaraxyada fuliya inay qaraxyadooda sii wadaan waxaa kaloo halkaa ka caddaatay in dadka badankood aysan diidanayn qaraxyade ay diidanaayeen meelaha lala beegto walaalayaal qaraxu waa jariimo weyn wuxuuna keensanayaa in uu maaragtay dad badan oo aan waxba galabsanin lagu laayo sidoo kale in dadka la dilo oo la toogto oo madaxa laga toogtana ayadana waa arrin khaldan si kastaba ha ahaatee waxaan leeyahay dadka ha ka digtoonaadaan waxyaalaha ay soo dhoweynayaan ay barakaynayaan qaraxu walaalayaal wuxuu mudan yahay in la cambaareeyo in mataqaanaa laga dhiidhiyo dabcan wadaadkaas la dilay iyo xertiisa waxyaalaha lagu haystay dembiyo runtii waxay ahaayeen waaweyn islamarkaana aan la aqbali karin laakiin sidaasay tahay cidna xaq uma lahan inay qarax ku disho cidna xaq uma lahan inay iska disho waxaana loo baahan yahay in arrintaa laga fiirsado walaalayaal inuu ahlu janno yahay ama ahlu naar yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa og qof kastana waa sidaas marka sidaas darteed dilka qofkaas oo kale laguma farxi karo maxaa yeelay kuwa fuliyey oo dilay ayaka naftirkooda ayaa dembiilayaal ah maxaa yeelay cidna uma ogolaanin fasaxna uma siinin inay naftooda dilaan dad kalena dilaan cid ay mas-uul ka yihiinna ma jirto saas darteed waxaanu ku baaqaynaa in shacabka soomaaliyeed ay ka digtoonaadaan in loo hoosgeliyo waxyaalaha khatarta ah waxaana ka mid ah qaraxyada noocan oo kale ah qofka dembi kastuu galo nacayb kasta uu ku dhaco wax kastaad u qabtid ma ahan in si khaldan loo dilo ma ahan mataqaana in qaraxyada la barakeeyo haddaba farriintayda waxay ku socotaa dadka saaka soo dhoweeyey qaraxa noocaas oo kale ah waxaa kaloo naxdin leh inaan arkayna dadka qaarkood inay lahaayeen next waxa ku xiga hebel nin kale intii sawiradiisa lasoo qaaday walaalayaal dadka waxaad moodaaba inayba hoosta ka wada yihiin kooxaha wax qarxiya
qaruxu marnababa weji ma yeelanayo, marnababana ma banaanaanayo. saas darteed haddaanu nahay Soomaali, qarax iyo dagaal waxaa noogu filan iyo dhibaato noogu filan horey ay noo soo gaareen. saas darteed waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala loo toobad keeno, ilaahay subxaana wa tacaala dalkeenna nabad iyo ammaan ha siiyo, ilaahay subxaana wa tacaala qaraxyada ha naga qabto. walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaan gacmaha isqabsanno oo aan nabadda xoojinno oo ammaanka xoojinno oo aan wanaagga taageerno oo aanu noqonno dad positive ah. walaalayaal dil iyo qarax iyo mataqaanaa ismidaamin intaba waanu ka soo daalnay. maanta waxaan u baahannahay nabad, waxaan u baahannahay nolol. dabcan nabad iyo nolol. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.